shirkan ay yeesheen mid ka mid ah beelaha dega gobolka Bari isla markaana loogu hadlayay ayahooda guud gaar ahaan kan siyaasadda ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso waxaana ka qayb galay isimada aqoon-yahanka dhalinyarada iyo haweenka beesha muddadii uu socday shirka waxa ay beeshan si qoto dheer uga wada hadleen sidii ay door muuqda uga qaadan lahaayeen arrimaha siyaasadda maadaama ay nagu soo food leedahay doorashooyinka dalka ugu horeen qaar ka mid ah nabadoonada waxgaradka iyo aqoon-yahanka beeshan ayaa shirka ka sheegay in la siiyo waxyaabaha ay xaq u leeyihiin ee kaga aadan siyaasadda sidaa darteed beeshu cabashadaas hore oo sidaa u dhacday ayay maanta waxay leedahay tolow beelaha kale oo aan walaalahay waxaan leenahay tolow waxa weeye caqligu ha shaqeeyo walaalnimadu ha shaqeyso maxaan ku yiraahdaa wax wadaagu ha shaqeeyo waxa aanu xaq u leenahay oo intaas oo sano naga maqlay waxaan doonaynaa in maanta aanu helo oo ku helo sifa cadaalad ah waxaan la hadlayaa isimada oo ugu horeeyo beeldaaje maxamed ismaaciil beeldaaje suldaamada nabadoonada waxgaradka intaas oo dhan waxaan u soo gudbinaynaa cabashadayada soo taxanayd ilaa 22 sano soo taxanayd inay maanta joogto positionkii gabagabada ahaa ee ugu dameeyay maanta waxa taagan waxa weeye dawladda federaalka dhismeedii xildhibaanada waa taagan ergooyinka waa taagan haddii maanta haddaan weyno oo horay sidaan u weyno oo cadaalad xumadii dhici jiray iyo dulmigii hore u jiray oo sii socoto de waxa weeye waa wax aan qaadan karin weeye oo beesha aadan cali ayaan qaadan karin weeye waxayna ka tashanaysaa aayaheeda haddii sidaas hore u dhac sidii dhici jiray gadaal u dhacdo maanta dhacdo aadan cali waxa weeye ka tashan doonaanin aayahooda oo cadaalad xumadu dadka way kala didhaa oo rag cadaalad waaya sidii cawsh kala yaacay noqonaysaa waxa weeye anagu aadan cali sano iyagaan eeri haddii marka ay sameeyaan waxa weeye sidii hore sameeyaan iyagaan saaray oo dhihi marka waxa weeye waxba cali sano kuma lehidin gabagabadii shirka Bashiir Faarax Saciid oo kamid ah dhalinyarada aqoon-yahanka ee beeshan ayaa akhriyay war-saxaafadeed laga soo saaray shirka ugu horeyn waxaad intiina xogogaalka ahayd xilligii loo tartamay doorashada xildhibaanada aqalka sare iyo kan golaha shacabka ee heer federaal 2016 wada xasuusantihiin in si cad oo aan madmadow ku jirin la isla qaatay in xubnaha xildhibaanada loo qaybsado si siman oo cadaalad ku jirto wareegtana ay noqdaan kuwa heer Puntland iyo kuwa heer federaalba laakiin waxa noo muuqata in dad badan rabaan in ballantii la gees maro oo kursigaana xaq u lahayn la boobo tarihiina la duudsiyo xubintayadina waxa ay ku sifowday hashii dhabaha lagu qalay ee waabwaan suga lahaa Allah u naxariisee hal dhabaha ku qalan baa jirto cidina dhaafayne oo kii lahaa dhowrayo uu dhadhaminayne haddaba waxaanu idinka filaynaa raqowl baaxira Soomaalidu waxay tiraahdaa raqowl baaxira in ballanqaadkii xilligii 2016 la galay iyo kuwii ka horeeyaba in si siman loo bixiyo sidoo kale waxay beeshu u soo jeedinaysaa gaar ahaan beeldaajaha beelaha Cali Salebaan beeldaaje Maxamed beeldaaje Ismaaciil mudane beeldaaje aad baan ugu hadweyneen hankaagii runtii oo soo dhaweynay cali masaarkaagii waxaanu islahayn waxay reerku u beriyay waa cusub oo cadaaladu ka qaalib noqon doonto dulmiga maadaama la doortay nin dhalinyaro ah oo aqoon-yahana macnaha cadaaladana si fiican u yaqaana waxaana taaganahay booskii shilay aan taagnayn ee ahayd in Cali Salebaan lagu dhaqayo cadaaladda beeldaaje maamulkii adaa Maxamedow muunadiisida ee masa ayaanu nahay nimanka aad nooga meelday ee xilku maaha maal ay dhaheen xilku maaha maal ay dhaqdeen maalin iyo leeyli adiguna ma mooganid inuu meerto uu yahay nin waliba wuxuu maagan yahay waa umitihiyaye inay miilihii reer aadan tahay muran la weeyaan ee adna uunka maqashii xaqa lagu majirtaaye gabagabadii waxay beesha aadam cali rajeynaysaa in wax laga qabto tabashada reerka taasi oo cod gaaban iyo cod dheerba ku sheegeen haddii wax laga qaaban waayana beeshu waxay ka tashan doontaa aayaheeda ugu dambeyn waxaa kaloo shirku iclaamiyay in dhammaan qaybaha kala duwan ee beesha aadam cali ee ku kala sugan daafaha adduunka Soomaaliya iyo kuwa aan hadda halkan ku sugnayn ay shirka soo qayb galin
in 30 bisha Maarso 2021 ama 31 bisha saddexaad 2021 shir guud ay isugu timaado beesho. Qadar Cabdulqaadir Xuseen, warbaahinta SBC, Boosaaso. anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. warmaahe run miya? waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin. oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha, maxaad mar hore igu sheegi weyday? fikir. BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama accountkiisa Daarasalaam Bank. haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. Payc